Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin. Ilaahay baa mahadlay subxaana wa tacaala ii suurageliyay inaan maanta inila wadaago mid ka mid ah siyaabaha ay nolosha bini'aadamku hadaafta u dejistaan. Run ahaantii hadaaftu waa waxyaabaha ayna noloshu ka maarmin. Hadafyadaas run ahaantii waxaa loo qaybiyaa hadafka waqtiga dhow iyo hadafka waqtiga dhexe iyo hadafka waqtiga fog. Sidoo kale haddii aad adigu qorshe yeelan weydo waxa aad si toosa uga mid noqonaysaa qorshayaasha cid kale ay leedahay. Haddii aad doonayso inaad hadaaf dejisato waxay kaaga baahan tahay fikir iyo qorshayaal. Inaad naftaada la fikirto ood meel la fadhiisataana waxay u baahan tahay waqti iyo firaaqo iyo waxa aad rabto inaad ogaato. Si aad u ogaato waxa aad rabto waa inaad intaad warqad iyo buug iyo qalin soo qaadato aad naftaada meel la fadhiisataa, isweydiisaa waa maxay baahida adiga ku haysataa. Kadib ayay kasoo dhex bixi kartaa waxyaabaha aad adigu doonayso iyo waxyaabaha aad leedahay xaqiiji. Markaasaad hadaafta noloshaada kuwa dhow iyo kuwa fog iyo kuwa dhexe intabaad ogaan kartaa.